Bismillahirrahmanirrahim. Prendre à contre-poil. معنيه waxa weeyaan parler ou agir de manière à blesser quelqu'un. يعني waxay ka dhigan tahay prendre à contre-poil inaad qof aad ka careysiisid, inaad dirisid, inaad ka xanaajisid. يعني waa kelmad laga soo qaatay xayawaanka iminka eygoo kale amba bisada marka loo salaaxayo timuhu way fadhiistaan jirkooduna uu fadhiistaa way macaansidaan hadii madaxa lagaga soo bilaabo ilaa iyo sidaa loo wado xagga dambe uu ku joogsanaya eygii ama bisadii way macaansanaysaa laakiin hadaa kolka u salaaxaysid aad kaga bilowday xagga dabada kaga soo bilowday dabada qabatid ama xagga dambe kaga soo bilowday uu diraya uu ka boodaya saas oo kale laga soo qaatay kelmadan marka waa qofka oo wuxuu naco aad ka tiraadid amba aad ku samaysid wuxuu dibsado oo aad ka careysiisid bay ka dhigan tahay tusaale wuxuu yiri c'est un homme bon waa nin wanaagsan weeyaan mais très susceptible laakiin fudud yahay il faut se garder de le prendre à contre-poil iska ilaali inaad ka xanaajisid oo wax uu dibsanayo aad samaysid iska ilaali kelmadan kale waxa weeyaan prendre part ka qaybgal bay ka dhigan tahay inaad ka qayb gashid يعني participer activement à un événement inaad arin ka qayb gashid weeyaan tusaale wuxuu yiri j'aime prendre part aux réunions de mon quartier waxaan jecel yahay inaan la fariisto oo aan ka qayb galo ururada iyo reunionyada ka dhacaya xaafadda aan degan yahay sidaas ayay ka dhigan tahay kelmadan kale ku xigtay waxaan prendre congé de quelqu'un prendre congé waxay ka dhigan tahay ka socosho ka dhaqaaqis maca salaameyn qof ay isla joogtay markaa ka soconaysid afartiis waxa la dhahdaa prendre congé marka wuxuu yiri dire au revoir à quelqu'un avant de partir waa qof aad ka socotay oo aad ka dhaqaaqday oo salaamu calaykum ka tiri tusaale wuxuu yiri il est tard waa xilli dambe oo waa habeen je dois prendre congé de vous waa inaan ka socdo oo aan ka dhaqaaqo ayuu yiri kelmadan kale ku xigtay waxaan prendre garde waxay ka dhigan tahay faire attention à un danger ou à une erreur iska ilaali wax inaad iska ilaalisid oo aad ka fiirsatid oo ka digtoonaatid bay ka dhigan tahay waa iska jir ka digtoonaasho tusaale wuxuu yiri prenez garde à ne pas glisser sur ces sols mouillés war iska ilaali oo ka jir digtoonow meeshan way qoyan tahay inaad ku sabaxato oo ku kuftid iska ilaali sawirkan ama dhulku qoyan yahay is ilaali ayuu ka yiri tusaale kelmad kale wuxuu yiri ku xigtay waxa weeyaan prendre mal quelque chose waxa weeyaan être vexé ou offensé par une parole ou un acte يعني inuu wax ka xanaajiyo oo wax ka carootid oo si xun aad u fahantid bay ka dhigan tahay inaad wax si xun u qaadato si xun u fahantid weeyaan tusaale wuxuu yiri n'allez pas prendre mal ma remarque c'est pour vous aider war si xun u qaadan aragtidayda waayo waxaan doonay inaan ku caawiyo yani anigu waxaan ka yiri ama hadalada aan ka yiri ee aan de kugu saxaysa ila tahay aan ka yiri walaalkayo khalada u fahmin waan ku nasteexaynayay ayuu kaleeyahay kelmadan kale ku soo xigtay lixaad waxa weeyaan prendre ses jambes à son cou oo ka dhigan s'enfuir très rapidement qofku inuu baxsado inuu caymado Soomaali waxa la dhahdaa cagta wax ka days weeyaan tusaale wuxuu yiri en voyant les chiens arriver l'enfant a pris ses jambes à son cou inankii yaraa kolkuu arkay eygiyo soo socda uu cararay uu baxsaday cagtu wax ka dayay kelmadan ku sii xigtay waxa weeyaan prendre la fuite iyaduna way u dhowdahay laakiin waa orod qofka caymado baxsada bay ka dhigan tahay tusaale macnaheedu wuxuu yiri s'échapper pour éviter une situation waa qofka socda oo ka baxsaday arin tusaale wuxuu yiri le voleur a pris la fuite avant l'arrivée des policiers tuugii uu caymaday oo uu baxsaday intuuba booliisku iman ay ciidanku imanba meesha uu ka baxsaday kelmadda ugu dambaysa ee ku xigtana waxa weeyaan prendre son pied waxay ka dhigan tahay ressentir un grand plaisir qofka wax ku raaxaysanaya ku faraxsan yani macaansanaya ayay ka dhigan tahay wuxuu yiri on voit qu'il prend son pied quand il joue de la musique ninkan kolkuu musiga ciyaarayo ama uu madaragtay musiga uu dhageysanayo inuu aad u nafisayo oo faraxsan yahay ayaa la dareemaa yani uu ku madaragtay aad buu ugu raaxaystaa ma garanaysaa saas oo kale weeyaan marka prendre son pied waa ku nafisid ku raaxaysasho ka helis weeyaan